سلام كدبرنتي شرفي نوتاي maanta inaan munaasabadan reer Hiiraan ay uga mahadcelinayaan gurmadkii xooganaa ee musiibadii ku habsatay fatahaadda ahayd dadkii u soo gurmaday in loo mahadceliyo runtii waa tilmaan fiican iyo ku dayasho mudan oo dadka Soomaaliyeedna aan loo badnayn ولكن أكثر الناس لا يشكرون ولكن أكثرهم لا يشكرون قرآنك وكبعده dadka badankiisii ma mahad celiyo marka in laga mahad celiyo gurmadkaas oo dadkii la xasuusto runtii wax weyn weeye reer Hiiraanna way mudnaayeen in loo gurmado dadka kale oo u gurmadana waajib bay ku ahayd inay u gurmadaan oo kuma fiirsan karin inay ayagii gartaan inay mahad celiyaan runtii wax weyn weeye marka runtii waa bogaadinayaa in la sheego sadaqay ahayd dad badan oo Soomaaliyeed oo muxsiniin ah ayaa ka qayb galay hay'adaha ka qayb galay dawladaha ka qayb galay maamuladii dalka ka jiro dhan baa ka soo qayb galay taas waxay muujinaysaa Hiiraan de meel la ilaawi karana ma ahan meel madaxdii dalkan Soomaaliya soo bilowday kuwa soo socdana ay u dhow yihiin way marka meel la ilaawi karo waa meeshii ubucdii xaruntii Soomaaliya way marka sidii xildhibaanmaha salaado hadalkan ku soo gaaray runtii waxay tahay biyahaas marna waa loo baahan yahay marna waa musiibo ayaga waa musiibo isku bedelaya marna baahidooda la leeyahay beerihiina waa naga qalaleen xoolihiina waa naga abaarsadeen marka waxaan u baahannahay farsamo markay noo yimaadaan aan ku meelaysan karno ku weelaysan karno oo annaga aysan ugu noqonin dhibaato bal aan uga faa'iideysano xoolaha iyo beeraha iyo kayd biyo intaba arrintaas waxay la tahay shaqada hadda noo furan gurmadka marka laga soo tago shaqada koowaad oo noo taala waxay tahay waa albaabkii biyo ka soo galay marna biyo de wabigi laftiisa marmarka qaar koodna uu iska qalala oo sanadka aakhirkiisa kale uu qalala marka shaqada noo taala oo gurmadka hadda noo xiga iyo qorshayaasha hay'adda hiddo iyo dadka reer Hiiraan iyo dawladaba looga fadhiyaa waxay tahay iyo maamulka Hirshabeelle intaba waxa looga fadhiyaa inay la yimaadaan aan la nimaano qorshe biyahaas aan uga faa'iideysanayno oo mar dambe aysan noqon dhibaato aysan ugu noqon ayaan dhaxdaas waa layla kabtan waxa la yiri warbiga hadii biyihii galmudugna abaar baa ka jirtay meeshaan biyo waa ku batay ma xagga xoogaa u leexin ayaa la soo jeediyay marka hadii biyahaas ka celi weedaan reer Hiiraan waa iga laxsanayna marka biyihiina cishada naweeyo oo mar dambe marka taas waa halkaas madasha runtii ayaantii dhaweyto ayadoo cusbayd oo 2 toddobaad meelahaas jirtay oo xisbiyada ugu badan oo maaragtay waaweyn oo dalka ka jira badankooda ay ku jiraan gurmadkaas qaybtii uga soo waxay qaybtii ay ku lahayd bay ka ciyaareen waa tii madaxweynayaashii runtii dhibaato loo marsiiyay inay gaarsiiyaan meeshaas lacag macquul ah oo aan ka yarayn runtii wax yar ka yaray tii dawladdu ay fidisay malaha dawladdu intay naga maseertay way tiri nimanka maaragtay waa مسير باقلي لكن مسير كوحي هذه واحد في عن لو ترتمه فليتنافس المتنافسون هذه ما هي ندي أرض على السقعلي ومركا أيضا سيدا ساي تايبان هدنا لبكاس أمرني تيارد لوقاتي مدحونياشي ورود دلكا يحل معنا بدن رونتي ريسك وقلين إن لقارسيو ماشا سيسو تابتان وأنا واجب بين أنه هيد مركا آدي آد ومهزنتين هذا يوم عرفتي سواء باب شيء رير هيران بدتكي نحرك لها ورير هيران ودوا ولا جوان بركنتي وأنا كم هذعلنا إن أنا حسوستين نما رجيس الصومال لان كيمد ورنتي ودن بيجي أو أيونا أبال جارا يوم هذعلين جارهن وجدين إن ميكروفون كان رنتي ولا لجرا ويا إن هالكاس وكي مادان أيضا الظروف دلكو كسوجين alla og yahay iyo siyaasadka la isku diidan yahay wixii inay
siyaasaddii oo dhan meel inta la iska dhigo halkaa laga yimaado oo walaalihii reer Hiiraan ay soo xasuustaan oo gargaarka muggaas loo xoogganaa oo runtii ka xoogganaa wixii la hayo dhanba ka badnaaba runtii inay halkaas ay ka yimaadaan si gaar ah ayagana ugu mahadcelinaynaa odayaashii inay joogaan iyo inay maqan yihiin hadda war kama hayo marka aad baa u mahadsantihiin guud ahaan baa u mahadsantihiin